muddooyinkii u dambeeyayba dowladda hoose ee degmada Ceergaabo ayaa dayactir ku waday raanweyga garoonka diyaaradaha ee degmada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag waxaana si rasmi ah mas'uuliyiinta dowladda hoose oo uu horkacay maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo waliba xogayaha dowladda hoose ee degmada Ceergaabo ay ugu wareejiyeen mas'uuliyiinta garoonka diyaaradaha ee degmada Ceergaabo gaari dandamis oo loogu talagalay hay'adka degdega ee soo food saaray garoonka diyaaradaha ee degmada Ceergaabo ugu horeynba waxa halkaasi ka hadlay maamulaha garoonka diyaaradaha ee degmada Ceergaabo waad aragtaan iminka waa dabadeeda waa ka yaala hawshu waa socota ranwayga striptirkiisii macdaadkii waa la wada keenay hawshu way socotaa intii badneed way qabsoontay inta hadhayna waxa lagu rajo weyn yahay in la dhameystiro sidaas ay xilka weyn isaga saartay local governmentku ama dawladda hoose in madaarkii Ceergaabo ama madaarkii gobolka Sanaag uu shaqeeyo maanta hadii la lahaa madaarku waa less stripted ama xaalad simitaan xumo aawadeed ayaanay flightsku aanay landingka iyo take off ka midna u sameyn karin maanta ba striptedkiisii waxa weeyaan waad aragtaan dhanka kalena waxa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo waliba xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Ceergaabo Saciid Cumar Caabi iyo taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sanaag iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Ceergaabo iyagoo dhammaanba ka warbixiyay muhiimadda ugu fadhiyo garoonkani bulshada gobolka Sanaag airport garoonka dowladda Ceergaabo oo muddo badan runtii xidhnaa waxaan rajaynaynaa inuu si degdeg ah u furmo hawshii gacantaanu ku haynaa baahidii weyneydna waanu keenay sida aragtaan macdaadkii waa ka shaqada ku jira dabdamiskiina waa ka yaala hawl badan buu u baahan yahay haddii aanu la kulannay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waanu uga warannay waanu u sheegnay baahida garoonka waxaan rajaynaynaa inuu baahida naga dabooli doono waan ka wada hadalay waxaan ku rajo weynahay inuu wax weyn nagala qaban doono insha Allah annaguna deerkayagii meel fiican buu noo marayaa dadweynahan waxaanu leenahay garoonkii waynu u guntanay hawshiisii waa ku jirnaa qaybi way fushay garoonku wuxuu u baahan yahay in la xidho wuxuu u baahan yahay xafiisyada dowladda in la dhiso hawl badan buu u baahan yahay waxaan rajaynayaa wixii naga cuslaado annagu aanu taagweyno inuu madaxweynuhu noo fulin doono waxaanu halkan ka wadnaa oo in dhoweedna soconayay shaqo laga wado airportka degmada Ceergaabo oo in badan dayacnaa hawlo badanna u baahnaa waxaa la isu xilqaamay oo la isu taagay in hawshii airportka sidiisii lagu soo celiyo shaqadiisiina sidaad aragtaan way socotaa meel fiicanna waa noo maraysaa inta la gabagabeynayo inta ugu dambeysana waxaanu ku tala jirnaa in la wado airportkii Ceergaabo ama airportkii gobolka Sanaag oo muddo dheer dayacnaa laakiin iminka muddo shaqo ay ku socotay maantana shaqadii ku socotay ay gabagabo tahay kullay dadaal badan baa loo soo galay waxa la keenay dabdamiskii waxa la hagaajiyay runwaygii iminka wax ka dhiman garoonkii ma jiraan maanta waa gabagabo hadii la hayraado aynu ugu mahadnaqaynaa waa adeegyada ugu muhiimsan iyo kaabayaasha dhaqaalaha ugu muhiimsan dalka aynu ku noolahay iyo gobolka aynu ku noolahay runtii waa dhaliil weyn aynu leenahay reer Ceergaabo iyo reer Sanaagba in garoonku inaga xidhmo inuu naga dayacmo waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa maamulka heer degmo iyo heer gobolba iska xil saaray iyo shacabka gacanta ka geystay ganacsato iyo shacabba gabagabadina waxa halkaasi ka hadlay barasaabka xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan isagoo bogaadiyay maamulka dowladda hoose ee degmada Ceergaabo shaqada ay ka wadaan garoonka diyaaradaha ee degmada Ceergaabo aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay maanta xaaladda uu airportku marayay iyo maanta halku marayo oo farq weyn u dhaxayo isagoo ay shaqadii ku socoto muddana hadda ay socotay shaqadaasu haddana uu meel fiican marayo runtii isagoo muddo badan xidhnaa airportku oo aan shaqayn maanta waxaad moodaa inuu shaqaynayo airportku si fiicanna uu diyaaraduhu u soo fadhiisan karaan madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka warhaya runtii airportku inuu xidhnaa muddo badan ayna gaadhay baahida loo qabo waxaan u maleynayaa waxa uu harsan inta harsanna inuu dhameystiri doono airportkuna uu furi doono
عدنان عبد الرشيد علي تلفزيون كعالم جوهرية 24 TV ورك قبل كسنة عرق أبو